asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena fankii caalamka maxaa ka cusub waan kusoo qaadan doonaa inta badan sheekooyinka dabcan ganacsiga aflaanta maadaama tiyaatarada caadi usoo laabteen sidoo kalena saameynta covid-19 dabcan laga xoog siibanayo fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada noogu xira muuqaalka noo sheergareeya waxaan ku bilaabanaa filimka caalamiga ee dabcan shirkadda d c iska leedahay ee hollywoodka the batman oo dabcan hogaamiyekii robert pattinson u suura gashay u s a box serviceka gaar ahaan waqooyiga america inuu gelgelo maalintii jimcada ahayd iyo sidoo kale dabcan khamiistii geninka dambe wuxuuna soo xareeyay lacag gaaraysa 57 milyan oo doolarka mareykanka filashadii hadda ahayd filimkan 80 milyan ilaa iyo 120 milyan doolarka mareykanka inuu soo xareyn karo weekendigiisa hadda waa laisla dhaafay waxaa lagu sharatamaa markii ugu hortahay filimka the batman in 120 milyan oo lacagta doolarka mareykanka uu ku daahfuran doono saaxiibada qiimaha badan filimkan xiisaha badan oo aad iyo aad looga helo waqti ahaan wuxuu soconaa 2 saac 55 daqiiqo sidoo kale tan waxaa la saaray 4417 tiyaatar waxay ka dhigantay halkii screen ama halka shaashada wuxuu kasoo xareeyay filimkan dabcan 12904 doolarka mareykanka aragtidiina ka dhiibta marka the batman oo waqooyiga america si holaca kaga gadmaayo gudaha hindi marka imaanna sidoo kale the batman kama marna ciwaanada sida shabakada box office ay soo qaadanaysa filimkan waxaa uu suura gashay in dabcan sabdigiisii kood uu soo xareeyay 7 karoor iyo bar wadarta guud muddo 2 maalmood gudaha hindi wuxuu ka soo xareeyay 14 karoor lacagta nadiifka ah sidoo kale tan wuxuu sameeyay 30 ilaa 35 boqolkiiba sar u kac waliba magaalooyinka waaweyn sida Mumbai iyo Delhi iyo meelo kaleeto ayuu si weyn kaga gadma waxaana muuqata weekendigiis filimkan in 23 karoor ilaa 25 karoor uu gaari karo waa haddii dabcan maanta waxaa si qurux badan u gadma marka batman gudaha hindiina uu ku fiican yahay waqooyi american iska baday wacdara uu ka dhigay inaba caadi ma ahan saaxiibada qiimaha badan megastar Amitabh Bachchan filimkiisa Johanda maalintii sabdiga sare uu ka sameeyay wuxuuna soo xareeyay 1 karoor bar laakiin kuma filno sababta waxaa la ogyahay jimcadii ganacsi liitu sameeyay waxay ka dhigantahay muddo 2 maalmood filimkan haatan 2 karoor bar ayuu soo xareeyay xisaabtaana kuma filno wuxuuna ku wanaagsan gobolka Maharashtra oo kaliya waxaa muuqata marka Johanda daadka inuu qaadi doono filimkan fariintiis way fiican tahay Amitabh Bachchan dhalinyaro dabcan ayaa la soo qona dhibaato ku jiraan garab siina kubadda cagta bara waxbarashadu bara laakiin culeys ka jira waxay tahay waqtiga saxda lama daawan kan gabaadii ka thawaadii masrax haysto iyo Batman ayuu dabcan shaashada la koro taasoo keentay marka filimkan in ganacsigiisa uu wiiqmo dhinaca kale Aaliya Bhatt filimkeeda waa holac looma geli kara sababtoo sabdigiisii labaad wuxuu soo xareeyay 7.75 karoor ilaa 8 karoor wuxuu noqday filim masraxa ku cusub oo kaleeto haddana wadarta guud filimkan looma dhawaan karo 79 karoor ilaa 80 karoor ayuu maraa sida shaaca laga qaaday sidoo kale tan waxay u badan tahay markuu toddobaadkiisa labaad dhameysto mashruucan 100 karoor uu gaari doono shabakada box office waxay leedahay filimkan in muddo ayuu masrax saarnaan doonaa kan gabaadii ka thawaadii sidoo kale markii la fiiriyo suuqada caalamka xataa si qurux badan oo kaga gadmaa filimkan 28 karoor soo xareeyay ayadoo filimkan la rajeynayo in dabcan ilaa ay 50 karoor suuqada caalamka soo xareyn doono sidoo kale tan cashuurta ka hor gudaha hindi wuxuu ka keenay 97 karoor filimkan hadda wuxuu maraa 125 karoor ayuu maraa ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii isku daro waxaa loo yaqaano World War Gross akhbaarta filimkan hadda ka cusub waxay tahay directorka filimkan sameeyay Sanjay Leela Bhansali iyo sidoo kale shirkad dabcan lagu magacaabo Ben Studio mashruucan isla maalgeliyeen waxay codsi u direen shirkadda lagu magacaabo Netflix oo marka hore ay ka iibiyeen gangabaadii ka thawaadii waxayna ka codsadeen in dib loo dhigo daawashada OTT-ga marka hore heshiiska wuxuu ahaa gangabaadii ka thawaadii markuu 4 maslax saanaado kadib loo wacay internetka oo laga daawado barta Netflix laakiin hadda Netflix codsiga loo jeeday waxaa la filimkan tiyaatarka si aan caadi ah kaga gadnaa dalabaadka daawadayaasha aad u sareeya fadlan dabcan naga codsada in muddo bil kale dib aan u sii dhigno sidaa darteed marka filimkan daawashadiisa muddo bil kale dib loo dhigo dhanka OTT waxay ka dhigantay dabiiqada bisha Abriil ama toddobaadka ugu dambeeya bisha Abriil ayaan daawan doonaa gangabaadii ka thawaadii waa markii la gudagal rabo dabcan Ciidul Fidriga ayaa filimkan la daawan doonaa oo dabcan laga dejinaa tiyaatarka loona weecin doonaa OTT-ga marka Sanjay Leela Bhansali Aaliya Bhatt filimkooda waqti fiican haysta uu iska baashaali karaa maadaama daawadayaasha aad iyo aad u xiiseynayaan saaxiibada qiimaha badan bal markaana soo qaadana filimka lagu magacaabo Vimla Nayak oo Bowen Kalyan hogaamiyay ka 150 karoor ayuu gaaray ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro waxaa loo yaqaan World War Gross tirsigiisa 9 maalmood sidoo kale tan suuqada caalamka filimkan wuxuu ka soo xareeyay 27 karoor sidaas ayuu haatan dabcan wuxuu ku maraa 151.6 karoor ayuu maraa sida dabcan officialka shaaca laga qaaday filimkan xiisaha badan gudaha hindi xitaa si qurux badan oo kaga gadmay lacagta nadiifka wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 108 karoor sidoo kale tan cashuurta ka hor wuxuu ka keenay 124 karoor iyo bar Vimla Nayak hadda qoliyaha cajalada qaybiyaan saami ahaan dib waxay kaga heleen 91.96 karoor ama 92 karoor ay dabcan share ka heleen filimkan
ayadoo markoo lagu iibsaday dabcan 106 karoor waxaa laga rabaa 108 karoor dib inuu usoo celsho saa darteed marka 16 karoor sheera kaga dhiman sidoo filimkan hiid dhammaystiran ku noqon lahay waxayna u badantay lacagta inuu soo celin doono hadda filimkan wuu guuleystay laakiin darajo aan wuxuu u dagaalama sidoo hiid dhammaystiran ku noqon lahay saaxiibada qiimaha badan Ajit Kumar superstarka caanka ee dhankaasi Tamil Nadu heysta filimkiisa Valimay markii aan firino asagana ganacsi wanaagsan ayuu sameeyay mashruucan haatan wuxuu marayaa lacagta nadiifka oo ka soo xareeyay gudaha Hindiya inta badan Tamil Nadu ka keenay 97.59 karoor sidoo kalena marka la fiiriyo filimkan canshuurta koor wuxuu soo xareeyay 114 karoor suuqyada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 35.6 karoor ayuu ka soo xareeyay qudarta guud ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro haatan wuxuu maraa 149.5 karoor ayuu maraa sidoo kale tan qoliyaha cajaladaha qaybiyaan daawadaashka madaxa u muuqataa lacagtooda inta badan usoo laabat maadaama haatan 90 karoor sheer filimkan laga helay oo dabcan kaliya 6 karoor ilaa 8 karoor intuu dhexeysa kaga dhiman sidoo hiid dhammaystiran ku noqon lahaa filimka lagu magacaabo Valimay saaxiibada qiimaha badan box office-ka Hindi wuu shidan yahay gobolada kastan dabcan waxaa jiraan filimo ganacsi heer sare ka sameynaya waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Vishman Pravam hogaamiye ka megastarka caanka Mammootty waxaa u suura gashay haatan filimka inuusan hakanaynin sidoo kale tan daawadayaasha qaban 18 karoor wuxuu ka soo xareeyay dhankaas iyo Kareela waa lacagta nadiifka laakiin markii la noocan shorta koona 20 karoor ka badan oo ka tilaabay ganacsigiisa haatan 25 karoor mara filimka lagu magacaabo Vishman Pravam sidaas ay wuxuu ku noqday hiid dhammaystiran sidoo kale tan maanta waxaa si hool ay u gadnaa markii waxay ka dhigantay Mammootty asagana wuxuu soo celiyay fanka Kareela ee dabcan reer Malayalam ka dhaxay inta badan loo yaqaan Bollywoodne Mammootty ayaa soo celisay sida officialka ee shaaca laga qaaday daawadayaasha qiimaha badan warar kale aan soo qaadan karna waxaa qayb ka ah waan ka xunnay Sharwananda wiilka lagu magacaabo filimkiisi ahay Adavalo Mekalo Jaharalo ee ku wareys gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandana kan meel uma socdo uu burburaya sababtoo maalinkiisa labaad wuxuu keenay 2 karoor oo kaliya hadda wuxuu maraa filimkan dhulweynaha Telugu markii rafish lacagtu ka soo xaray 4.9 karoor sidoo kale tan sheer kale wuxuu gaaray 2.89 karoor ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro World War Garoos waxa loo yaqaan filimkan haatan wuxuu maraa 6.15 karoor saami ahaan waxaa laga helay dabcan 3.67 karoor ama 4 karoor saami laga helay filimkan waxaa lagu iibsaday 15 karoor bar waa inuu 16 karoor dib u soo celshaa saa darteed marka hadda waxaa kaga dhiman lacagtaas 12 karoor wayna ku adagtay inuu soo celiyo saa darteed marka Sharwananda filimkiisa daadka ayaa qaaday dhinaca kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybkee oo dabcan maantadan jiran Radhe Sham filimkan waxaa la horgeeyay guddiga filimada Faafriga maadaama 11 bisha Maars Bravas oo tiyaatarada qabsan doonay Buja Heji filimkan jaceelka waxaa la siiyay shahaadada US certificate ama Universal Adult certificate qof kasta daawan kara markii laga reebo caruurta dabcan daa'da ka hoose 12 sano oo u baahan markii tiyaatarka aadaan qof mas'uul la socdo ninka lagu magacaabo Radhe Krishna Kumar filimka uu sameeyay waqti ahaan wuxuu socon doonaa 150 daqiiqo ama 2 saac 30 daqiiqo ayaa tiyaatarka laga daawan doona waana filim jaceyl ah oo hadal ahayntiis aad u sareyso laguna kalsoon yahay koonfur Hindiya iyo Hindi oo idil qabsan doona marka laga soo tago Bravas iyo soo kale Buja Heji waxaa door muhiim ah kula Jagapati Babu iyo atirashadii barasamaadkii laga dambeyn jiray Vagashriya oo filimkii mana biyaarkiya Salman Khan la sameeyay marka nasiib u aanan Bravas oo filimkiis daawashadiisa ay soo dhawaatay sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybkeed daawadayaasha qiimaha badan Kareena Kapoor Khan ayaa hambali u dirtay wiilkii eedada u tahay Ibrahim Ali Khan kaas oo dabcan Saif Ali Khan aabo u yahay sidoo kale tan atirashada caanka Amrita Sin hooyo u tahay Ibrahim maanta wuxuu u dabaaldegay sanad guusha 12aad sidoo kale tan wiilkan waxaa la rajaynayaa dhawaan inuu ku soo biiro fanka Hindi markuu dhameysto waxbarashadiisa Kareena Kapoor waxay tiraaday Ibrahim waa shakhsi ugu qaali ah sidoo kale waxay tiraaday waa saaxiib ugu qaali ah sidoo kale waxay tiraaday waa shakhsi aad u wanaagsan wali waxay dhahday qoyska Khan waa kan ugu jeclan ka dhawaajisa darteed marka wiilkan oo u dabaaldegay sanad guusha 12aad eedadiisa maanta aad iyo aad waa amaantay sidoo kale waxay tiraaday waa qofka aan family ku leeyahay oo ay saaxiibo yihiin waxaan sugnaa waxay tahay marka Ibrahim Ali Khan iyo waqtiga uu shaashada soo gali doono ama filimada uu ku soo biiri doono saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna xitaa koonfur Hindi waxaa jira heerlaan caadi dhankaasi Tamil Nadu markii la aaday xaruntooda ee Tajinay sababtoo laba fikram ayaa isku dhici doona meesha tafaasiil aan ka bixino 26 May waxaa isku dhici doona fikram VS fikram haddii aan tafaasiil ka bixin waxay tahay superstarka caanka Jian Fikram filimkiisa lagu magacaabo Cobra ayaa 26 May la daawan doona waxayna isku dhici doona filimka lagu magacaabo Fikram oo hogaamiye uu ka yahay megastarka caanka Kamal Hassan sidoo kale Fidelis Tabatu iyo Fahad Fasil ay la sameeyeen waa filim weyn oo fariinta gangsterka ximbaarsan fikram filimkiisa Cobra dabcan wuxuu ku mataan shakhsi xisaabta yaqaano kaasoo dabcan sameeysanay 8 waji oo kala duwan iyo filimkan ku mataan marka Cobra in muddo la sugay fikram shaqadiisa way dhamaatay marka waxay ka dhigantaa fikram VS fikram isku dhacayaan mid waa shakhsi u taagan yahay superstarka caanka fikram kan kalena wuxuu u taagan yahay filimka fikram oo hogaamiye uu ka yahay Kamal Hassan ugu dambeyntii sheekooyinkan soo qaadan xitaa Rudra The Edge of Darkness superstar Ajay Devgan hogaamiye ka OTT-ga gaar ahaan barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar waxaana shirkaddan shaaca ka noqotay taariikh ahaan filimka lagu daawasho badan 24 hours ama hal maalin gudaheeda ee laga
laga daawaday barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar film caadi lagama hadla waxaa laga hadlaa series ama musalsal dhowr qaybood ka kooban maadaama Rudra uu ka kooban yahay 6 xalqo xalqo kastana ay soconayso 50 daqiiqo ilaa hal saac intuu u dhaxaysa darteed marka Dave Gunn OTT uu qabsaday si aan caadi ahayn filmkan u qabsaday sidoo kale tan mashruucan qolyaha filimada ka falan waxay siiyeen 3 xidig ilaa 3 xidig iyo bar ayay siiyeen halka shabakada caanka IMDb rating qiimeyntiisa ay ka bilaabatay 7 xidig iyo bar taas oo ay ka dhigantay Rudra The Edge of Darkness film wanaagsan yahay qof kastana wuxuu amaanay doorka Ajay Devgan uu qaatay askariga mayalka adag kaas oo loo xilsaaray inuu baaro kiisas kala duwan laakiin dhibaato familna way haysataa sidoo kale tan kiis kasta uu qabanay wuxuu kala kulmaa caqabad wada lagu magacaabo Rashi kan oo koonfur hindi ka imaad doorkay qaat ayadana aad lagu amaana maadaama Ajay Devgan marna xifaaltamayaan marna saaxiibo ay yihiin Isha Diolna filmkan wuxuu ku matalay Ajay Devgan marwadiisa Atul Kulkarni wuxuu ku leeyahay door muhiim ah waa film la sugu imaaday oo ka kooban 6 xalqo xalqo kastana Ajay Devgan waxa uu yaala kiis uu baarayso oo kaga hortago niman dabcan dhibaato geysanayaan ama dambiye fulnaa marka aragtidiina ka dhibta Devgan oo OTT ay qabsaday oo record viewership ka sameeyay ay shaaca ka qaaday Disney Plus Hotstar waxaan rajaynaynaa mashruuca in la soo fasiri doono si aan u daawano maalmahan ugu soo foole bahda fan broad waxa ka codsanayaan dabcan inay codsiga noo tixgeliyaan oo ay Rudra daawadaan kadibna qiimeeyaan sidoo kale noo soo turjumaan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan fankii caalamka maxaa ka cusub intaasaan kusoo ilaalinana fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu